بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامجكي aan ku falanqeynaynay taariikhaha ku qarsoon jidadka magaalada London maanta waxaan soo booqanay dhismaha taariikhiga ahaa ee loo yaqaano Whiteley Shopping Center waa dhismo taariikhi ah waa shopping centerkii ugu horeeyay magaalada London laga dhiso bal ila kaaleya aan fiirino dhismahan waxaa dhisay ninka loo yaqaano William Whiteley shirkadiisa waxayna ahayd shopping centerada kuwii ugu horeeyay 1911 la dhisay waa taariikhda moolalka meesha ay ku bilaabanaysay magaalada London runtii dhismahan waa dhismo taariikhiga ah laakiin waxaa cajiib ah sanadkii 2018 ayaa waxaa iibsaday boqorka Brunei oo dalka Brunei xukumo boqorkaasoo lacag badan ku bixiyay laakiin boqorkii waxaa lagu yiri dhismahan waa inaad sideedii ku daysaa waa dhismo taariikhi ah waa listed building waa in qolofta dhismaha sideedii ay ahaataa marka taas darteed ayaa qoloftii waa sideedii laakiin gudaha ayuu wuxuu ka dhisay dhismaha hadda gabagaba joogo 140 apartment iyo hotel 6 star ah iyo shopping center oo gudaheeda ayuu ka dhisay laakiin boqorka waa loo diiday in uu wax ka bedelo dhismaha dibadeeda qolofta oo dhismaha sideedii ayuu ku dhaafay marka waa dhismo taariikhi ah waxaan kaloo ka baran karnaa dhinaca kalena waa kan halkaas ay jirtaa waa dhismo aad u weyn waa dhismo qurux badan oo taariikhi ah dhismaha weli waa socdaa 140 oo apartment uu ka dhisay iyo hotel oo 6 star ah iyo shopping centero laakiin waxyaabaha casharka oo noo ah oo aan ka baranayno waxa waaye in taariikhda la keediyo dalkan Ingiriiska waxa aad loogu yaqaanaa waxay aad u keediyaan taariikhdoodii sidoo kalena dhismaha naga soo horjeedo dukaamadan oo dhan asaga iibsaday boqorka laakiin dhismaha weli ma bilaabin laakiin jidkan ayaa waxaa la yiraahdaa Queensway maadaama jidka magaca la yiraahdo Queensway oo taariikh ay tahay oo jid boqortooyo ay tahay ayuu wuxuu go'aan ku gaaray in dhismaha jidadkan ku yaala dhan uu iibsado kan uu iibsaday xagga ilaa intana uu iibsaday maanta jidadka London aan ku mashquulsanahay isla jidkii oo hadda aan ka soo tagnay jidad kale waxaa jira taariikhi ah oo ku tusayo cashuurihii laga qaadi jiray dariishadaha bal ila kaalay aan tuso taariikhda ku qarsoon qarnigii 16aad adiga 17aad 18aad ayaa waxaa jiray in dawladda boqortooyada Ingiriiska ay soo rogtay canshuur lagu canshuurayo dariishadaha hadda ay la fiirisaan dariishadahaas xirxiran dhinacan midig iyo dhinacan bidixba waxa arkaysiin dariishado xirxiran boqorkii markaa qabtay ayaa waxa cadaadis badan uga yimid meeluhu gumaysanayay qaar ahaan Mareykanka iyo meelihii ay gumaysanayeen lacag ayaa loo baahday marka sida kaliya uu ugu canshuuri karayna waxay ahayd dariishadaha maxaa yeelay waagaas kaniisadda ayaa xoog lahayd kaniisadda ayaa waxay ka qaadi jirtay dadka zakaad oo 10% oo maalkooda ah laakiin boqorka sida kaliya uu la taliyaashiisa waxay la taliyeen sida kaliya cashuur ku qaadi kartid waa inaad dariishadaha canshuurto maxaa yeelay dariishadaha lama qarin karo waa la xisaabi karaa qof qarin kara mala dariishadaha marka dariishadaha inuu ka canshuuro laakiin taa waxay dhalisay dhibaatooyin badan oo xag caafimaad ah xitaa halku dhaga loo yaqaan daylight robbery halku dhaga loo yaqaan meeshaasuu ka yimid maxaa yeelay qoraxdii ayaa laga afduubay dadkii marka meeshaasuu ka yimid halku dhagaas laakiin hadda waxaa loo adeegsadaa maalin cadooya leesdhaca ayaa loo adeegsadaa laakiin halku dhagaas daylight robberyga wuxuu ka yimid canshuurtan oo window tax la dhahayo sidoo kalena markii hadda مثلا xataa wuxuu saameeyay hab dhismeedka oo dalka UK ay u dhisaan guryaha markii canshuuraha la soo rogay guryaha la dhisayay injineerada waxay ka dhigeen guryo aad u yar yar oo dariishadihiisna ay yar yihiin taas ayaa sababto walaalaheena markay Minnesota ama noogu yimaadaan dalka Mareykanka waxay dhahaan maxay guryihiin u yar yar yihiin maxay guryihiin saan u yihiin
marka waxa kalifay waa taariikhdan oo window tax-ka ah. maxaa yeelay guryihii ayaa loo dhisay hab dariishadihiisu ay yar tahay si qofka canshuurta uu ugu baaqdo. marka taariikh qarsoon waaye ayadana oo jidadka London ku qarsoon. dadkan hadda dariishadaha kuma xiri kartaan ayaa la yiri, sidiis kuma soo celin kartaan. taariikh ahaan ayaa loo keediyey, meelo badanna oo taariikh ahaan loo keediyey ayaa jiro. jidad badan waa idin tusi doonaa sawiradoodii hadduu ilaahay yidhaahdo. baaraka allahu fiik. isla xaafadii hadda aan ka imaanay waxaa daris la ah jid taariikhi ah, waddo taariikhi ah loo yaqaan Leicester Garden. waddadan waxay caan ku tahay ama lagu yaqaanaa ila kaaleya aan idin tuso guryaha ama guryaha loo yaqaan fake house-ka. fake house-kan taariikhdeedii waa ugu yaraan 2 qarni. bal kaaleya aan idin tuso. waa guriga lambar 23 24 Leicester Garden. waa guri fake ah ama dhalanteed ah. waxaa ku kasaysaa malahan boostada meesha laga gelinayay waraaqaha malaha. waa guri frame ah kaliya. taariikhdeedina waxay dib ugu dhacaysaa 1800. waa underground-kii ugu horeeyay marka la aasaasay oo dhuxusha ku shaqaynayay. waxaa loo baahday meel ay dhuxusha uga neefsato tariinka. marka saas darteed ayaa waxaa loo baahday in labadan guri la dumiyo oo si tariinka markuu hoos maro dhuxusha ay qiiqa ugu soo baxdo ay ku neefsato. marka dadkii xaafadan deganaa oo ahaa dad lacag leh ayay waxay aad u dhibsadeen foolxumada ay keentay meeshii la dumiyey oo jidka quruxdiisii iyo ayay wax u dhintay. markaasay waxay dacwo u qorteen dowladda, waxay dacwo u qorteen degmada, waxay dacwo u qorteen shirkadda tareenka. markaas ayaa waxaa la fadhiistay fadhigii sida loogu murmayey ayaa ninka injineerka ahaa ayaa wuxuu keenay xal. wuxuu yiri haddii quruxda jidka kaliya aad ka murgaysaan waxaa idin sameynayaa guri oo faalso ah oo guryihiina u eg oo frame ah. taasna quruxdiina waa soo celinaysaa, tareenkana sidii ku marayaa. marka waa mahmaadii Soomaalida ay ahayd sida ilkaha wax ay ku cunaan carabkana wax uu ku gooynin ayay ahayd. marka taasna waxay ku tusaysaa in haddii ay jirto rabitaan oo sulux ama heshiis in la helayo. barke ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri in yurida islaahan yuwaffiqu Allah baynahuma. haddii aad sulux doonaysaan ilaahay waa idin waafajinaa. marka hadda meeshan looma baahno tariinkii wuxuu ku shaqeeyaa koronto. laakiin waxay dhaheen sideedii kuma soo naqeena, taariikh ahaan ayaa loo keedinayaa. waxay u keediyeen taariikh ahaan si ay dhalinyarada hadda jiro ay u soo booqdaan taariikhda wixii dhacay ay u arkaan. taa ayaa loo keediyey dhismahan. inkastoo tariinka hadda koronto uu ku shaqeeyo aan loo baahnayn qiiqi, laakiin waxay dhaheen sideedii ayaan ku dhaafeynaa. waa taariikh lama ilaawaan ah. waa taariikh tusaysa in wada hadalka wax uu keenayo natiijo qurxoon. marka sidoo kale dhanka gadaalana waa idinka tusi doonaa. dhankaana waa dhankii gadaale. haddaa arkaysaan labada guri la cunay waa eber ujeeda, waa birahaas kaliya hayo. derbigana sidiisii waaye. marka guryaha la cunay waa inta. tariinkana halkan ayuu maraa oo waa qofkii waa laga arki karaa tariinka markuu soo maro meeshaan uu soo hoos marayaa. tariinkaana runtii wax weyn ayuu u taray, maxaa yeelay wuxuu ka imaadaa magaalada banaankeedii. dadkii ayuu magaalada ku soo xiraa, dalxiisayaashii ayuu. marka ahmiyad weyn dadkiina waa ka faa'iidaysteen. gurigaasna maslaxuu keenay oo fayga ah oo markaas la dhisay. haddana jidadkii London waa kasoo dhammaysanay oo meeshii waxaa u dhow jardiinka loo yaqaan Hyde Park. waa jardiinka ugu weyn magaalada London. waa jardiin aad ay dalxiisayaasha u yimaadiin oo la soo booqdo oo waa jardiino aad u baaxad weyn. magaalada London waxaa lagu yaqaanaa jardiinooyinkeeda badan oo dhismooyinka dhan waa inay jardiino lahaadaan maadaama ay dadka caafimaadkoodii wax weyn ay u tarayso. marka si kastaba ha ahaatee casharka maanta aan ka baran karno jidadkii aan soo aragnay, taariikhihii iyo aan soo aragnay, waxaan aad ugu baran karnaa
aan dhihi karnaa marka ugu horeyso ahmiyadda ay leedahay in la keediyo taariikhda. maxaa yeelay taariikhda uu dalku leeyahay haddii la keediyo jiilka cusub wax weyn ayuu u tarayaa. maxaa yeelay taariikhdaadii hadday dabar go'do ama ay baaba'do waa sida geedahan oo kale oo aan xidid lahayn oo caleemaheedii meel iska duulduulayo. laakiin qofka taariikhdiisii hadduu keedsado uu taariikhdiisii yaqaano, ogaansho nafeedka qofkaas nafsadiisa inuu ogaado u sahlanaanaysaa. ahmiyad weyn ay u leedahay. marka waxaan ka baran karnaa magaalada London in anagana magaalooyinkeena taariikhdoodii ku qarsoon, magaalada Muqdisho, Hargeysa, Kismaayo, Garowe, meelo walba sida Warshiiq, Zaylac, taariikhyada ku qarsoon oo dhan inaan keedino hadduu Ilaahay yiraahdo si jiilkeena wax ugu bartaan. tan labaad aan ka baranaynana waxa waaye canshuuraha. canshuuraha in la yareeyo ayay ku fiican tahay diinteena ahaanna taasay qabtaa. reer galbeedka waxaa lagu yaqaanaa canshuuraha yareynta waxay bilaabeen markii buwaagta af carabiga loo tarjumay afka laatiiniga ama af ingiriisiga. buwaagta waxay aad ugu faa'iidaysteen buugii ibnu khalduun oo la yiraahdo muqaddamada ayaa waxaa ku qornaa kullamaa ay xukuumadda ama boqortooyada ay canshuurta kordhiso, kullamaa oo kacdoonkii uu bato dadkana ay dhiibeen. hadda maanta waxaan soo aragnay dariishadaha la canshuurayay si ay dadka canshuurta u bixin, dariishadihii ay iska oodeen, taasoo caafimaad daro keentay. marka waxa waaye waa muhiim inaan ka barano sida hadda matalan madaxweynihii Mareykanka Kennedy wuxuu ka bartay buuggaas oo ibnu khalduun asaaba khirtay. wuxuu yiri buugga ibnu khalduun ayaa ii suuro geliyey inaan canshuurta haddii la yareeyo uu dhaqaalaha kor u kacayo. marka waana ogeedeen madaxweyne Kennedy markii labaad ayaa la doortay. dhaqaalaha Mareykankana waa markii uu ugu sareeyay markuu madaxweynenimada ahaa. marka waa muhiim in sida gobolka Banaadir ama dowladda inay yareyso canshuuraha, dadkana inay noqdaan canshuur bixiyaal. hadda wadamadan Yurubka aan joogno dadka waa canshuur bixiyaal, canshuurta waa bixiyaan, laakiin canshuurtana waa waxay awoodaan oo aan dhib ku ahayn. marka waa muhiim inaan dhanka canshuurahana aan insha Allahu tacaala sidoo kalena meesha aan soo aragnay oo fake house-ka waxaan ka baran karnaa in sulxa hadday dhibaato dhacaan ama wax laysku qabto haddii la wada hadlo in heshiis laga wada gaarayo. waa aragteen meeshii oo fake house-ka aan soo aragnay, taas ayaa laga baranayaa. marka waa muhiim inaan taariikhdeeni aan wax aan keedino hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan jeclahay inaan ka faa'iidaysteen. waa inuu mar kale insha Allah taariikh kale oo magaalada London ah sidoo kalena cashir kale oo muhiimsan oo aan ka baranayno waxa ahmiyadda ay leedahay jardiinooyinka oo hawada oo magaalada ay u leedahay. ayaga laftirkooda waxaa la yiraahdaa reer galbeedka waxay ka barteen Baghdad markay say u dhisnaan jirtay awal. magaalada Baghdad ayaa waxay ahayd macnaa magaalo ay ku hareeraysan yihiin jardiinooyin iyo beero iyo waxaas. marka waxay siinaysaa magaalada inay neefsadaan ama kaarbonkii sidii uu ku baxo. marka anagana magaalada Muqdisho sidee waa inaan u yeelnaa meelo oo jardiinooyin ah oo cagaaran si magaalada loo helo meel ay ka neefsato, caafimaadka caruurteennana iyo dadka yani u anfaco. runtii mar walbo meel la dhisaayo waxay u sameeyaan meelo jardiino ah. marka waa inaan ka baranaa anagana oo meel walba aan dhisin qayb aan u qoondeynaa insha Allahu tacaala jardiinooyinka hadduu Ilaahay yiraahdo.